Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. baabasiirka iska daawey adigoo gurigaada joogo. Haddaba cashirkeena waxaan ku baran doonaa maanta waa maxay baabasiir. Baabasiir waa caabuq iyo barar ku dhaco xididada soo gala dabada. Qof kastu wuxuu godka dibadda ku leeyahay malawadka xidido soo galo. Qof kastana wuxuu markasteeto uu nugul yahay in oo helo xididadaas dhiiga ee soo galo dabada. Xididadaas marka ay kala fidaan oo dhumucdoodu baahdo ayaa waxaa dhacdo baabasiir ama wax loo yaqaano qormaaley. Marka cadaadiska ay riixaan oo ku dhaco xididka, waxaa ku dhaco xididka in oo lumo ama laastiga dhumucdiisa weynaato ilaa uu noqdo kiish uu dhiiga ku xirmaayo. Luqadda Ingiriiska ee loo yaqaano baabasiir waxaa la yidhaahdaa hemorrhoid ama bailis. Soomaalidu waxay u taqaanaa magacyo badan oo aan ku soo xusi karno baabasiir ama qormaaley. Baabasiirku wuxuu dadku ku keenaa xanuun aad u fara badan ama cuncun badan, weliba xataa sii dheer yahay welwel. Mararka qaarkoodna waxaa lagu arkaa dhiigbax. Dadka Soomaaliyeed qaarkood waxay ka dhigaan baabasiirka calaamad ceeb ah oo hoosta loo sheego qofka markii laga cabanayo ama qofka markuu ku cabanayo. Xaqiiqdiisu ma ahan sidaas. Waxay tahay in baabasiirka qof kasta uu leeyahay, waayo ma jiro qof aan ku lahayn xidido god ee dabada iyo malawadka ku dhaca. Noocyada baabasiirka haddii aan kala qaadno, wuxuu leeyahay laba nooc. Nooca koowaad waa baabasiirka bannaanka ee loo yaqaano external hemorrhoid. Noocaani wuxuu ku dhacaa agagaarka godka dabada ee loo yaqaano anus, waxaana la dareemaa xilliyada saxrada haddii ay docosho jirto. Waxaad mararka qaar dareentaa xididada bannaanka ee baabasiirka soo galo ama ka buuxsanto dhiig aad u fara badan. Markii la taabtana waxaan dareemaysaa xanuun. Baabasiirka bannaanka mararka qaar xanjir ayuu wataa. Haddii aad gacanta xididkana ku daabato dhexdood, waxaa la yidhaahdaa xididkaas ee soo buuxsama dhiiga thrombosis. Xinjirtu waxay keentaa xanuun badan ama dhiigbax, laakiin khatar ma ahan. Inta badan hal isbuuc bes baa lagu arkaa, ama bukaanka wuxuu ku dareemayaa iskeed inuu iskaga arko, taasoo ah in ay iska bogsato. Baabasiirka labaad ee loo yaqaano internal hemorrhoid. Noocaani wuxuu ku dhacaa gudaha shishe ee xigto malawadka loo yaqaano rectum. Noocaani ma dareemi kartid mana arki kartid haddii uusan dhiigbax gudaha ka imaanin. Inta badan xanuun badan ma jiro, mana lahan, maadaama ay ku lug leeyihiin neerfayaal shishe. Baabasiirka haddii uu weyn yahay, waxaa suuragal ah in uu bannaanku u soo baxo. Nooca iyo jaantuska baabasiirka uu leeyahay. Maxaa keeno jaantuska baabasiirka ama qormaaleyda? Sababta ugu weyn ee keento baabasiir waa caloosha oo fadhido oo loo yaqaano constipation. Saxarada adag waxay dhaawici kartaa xididada u nugul dhiiga ee soo maro malawadka ama dabada. Markasto saxarada adag tahay, waa in lagu qasbo in ay xoog u soo baxdo ama la socdo wax xaqmaal ah ama gidaarada dabada ay ku xiran yihiin xidido dhiig. Cadaadiska fuulo xididada wuxuu ku keenaa in uu lumiyo laastiga, markaas dhumucdiisuna ay weynaato. Weliba waxaa imaanayo in oo dhaco dhiigbax, waxaana ku xirmi karo dhumucda oo ballaarato ee xididka. Waxyaabaha kale ee sababi karo baabasiirka waxaa ka mid ah shubanka oo muddo dheer oo socdo, cayil zaa'id ah, docosho badan xilliga saxaradka, musqusha oo muddo dheer la fadhiyo, qaadista culeys dheeraad ah. Calaamadaha lagu garto baabasiir qofka qabo waxaad ku garan kartaa ama uu qofka iska shakin karaa xanuun iyo cuncun
kadib markii la saxaroodo. Fadhiga oo qofka dhibo xanuunka awgiis. Cuncun agagaarka malawadka dhiig soo raaco saxarada. Dhiigbax haddii ay qarxaan xididada murqaha soo galo. Mararka qaar xididada baabasiirka oo dabada ka muuqdo waxay noqonaan mid adag. Fadlan adigoo joogo gurigaada iskaga daaweey baabasiirka. Kow, waxaad isticmaalaysaa biyo diiran oo cusbo leh. Baaldi ama baaf soo qaado, kadib biyo soo kululeyso si diirimaad leh oo ugu qubayso ama kuna darso cusbo ilaa dhowr qaado. Kadib ku dhex fariiso baaldiga ama baafka si biyahaas ayagoo qandac ku waxay daawo u yihiin biyahaasi in ay ka joojiyaan xanuunka iyo cuncunka weliba dhiiga badan la socdo. Kuna dhex fadhi ilaa 20 daqiiqo markaad saxaroota kadib. Tufaaxa. Haddaba raashinka la cuno tufaaxa fruitka loo yaqaano waxaad ugu muhiimsan kartaa ama uu muhiim u yahay baabasiirka. Wuxuuna qofka isticmaala ka dhigaa mid ku raaxaysta baabasiirka xanuunkiisa iyo cuncunkiisa. U isticmaal inta aad shiidato tufaaxa iyo inaad marsato dhammaan meelaha hoose ee nabaradu ku yaalaan ilaa afka dabada, ama cabitaan ahaan inta aad u qasato ama aad shiidato. Hal qaando oo cusbana ku darso, cab maalin walba, waana ka bogsan doontaa insha Allah. Daaweynta saxda ee baabasiirka. Haddii aad iskaga shakiso in aad baabasiir qabto, booqo dhakhtar oo baaritaan kugu sameeyo oo welibana kuu xaqiijiyo in aad qabto baabasiir. Ha isku dayin in aad u tagto dhakhaatiir daaweedka ama dhaqameedka. Waxaa jira kuwo sheegta in ay gooyaan baabasiirka. Taasna macquulna ma ahan, mana ku raysan kartid. Waxaad u geysataa qof yaqaan ee dhakhtar ee baabasiirka ku daaweyn karo si xeelad iyo xirfadiisa ku mudan tahay. Dhibta kugu weyn ee hadda aad ka cabanayso ayaa noqon doono midka hadda kugu khafiifka haddii lagaa gooyo baabasiirkan. Waxaad muteensanaysaa in xanuunkaasu aad kugu sii ballaarto. Dabada iyo haraaraheeda waxaa ku yaallo shax neerfayaal ee xukuma xiritaanka iyo furitaanka malawadka saxarada lagu kaydiyo. Haddii neerfayaashaas qof oo qabiir ku ahayn oo jeexjeexo, waxaa laga yaabaa in uu gooyo mid ka mid neerfayaasha. Taasina adigay ku dhaawacaysaa. Daaweynta ugu fiican ama ugu wanaagsan baabasiirka waa ka hortaga in saxarada ay ku adkaato. Haddii ay saxarada ku adkaato, waa muhiim in aad markasteeto iska fiirisid inay saxarada ku adkaanin. Saxarada adkaashaheeda iska ilaali. Haddaadan iska ilaalin, waxaad u nugushahay inuu kugu dhaco baabasiirka. Habka ugu wanaagsan ee ugu hortagi kartid waa saxarada oo adkaado, waana cunista cuntada buunshada Cuntada buunshada haddii aad cunto iyo qalfoofta sida digirta, saleenka, qudaarta iyo qudaarta cagaaran weliba. Intaas haddaa isticmaasho, waa muhiim in uu ka bogsanayo baabasiirka. Cabitaan biyo badan isticmaal oo cab. Wuxuu caawiyaa jilcinta saxarada. Waxaa jira daawooyin si fudud loo helo, welibana loo heli karo oo la yiraahdo laxative ee dadkana u yaqaanaan glucose oo saxarada lagu jilciyo. Sidoo kale waxaa jiro boomaatooyin iyo sabostooyin oo kaalmaati ay joojiyo xanuunka iyo cuncunka baabasiirka keeno. Haddii dhakhtarkaagu kuu xaqiijiyo in aad qabto baabasiir, wuxuu kula talinayaa si wanaagsan kana dhagaysa taladiisa. Talo wanaagsan haddii aad qaadato, waa muhiim baabasiirka inuu kaa bogsanayo. Kow, taladan qaado. Daawada ugu muhiimsan ee baabasiirka waa in ay saxaradaadu jilicsan tahay. Marka aad sidaas dareento in ay wax yar saxarooto ama saxaro kusoo qabtaan, aad horeyna u gal suuliga ama musqusha. Waa inaad tagtaa oo iska soo fujisaa saxarada. Haddii daaweynta guriga aysan mid waxtar lahayn, kadib muddo badan 2 toddobaad aad isticmaashay,
ka samayso ballanqaad dhakhtarka si uu toos ah kugu arko xaaladaada halka ay marayso. haddii dhiigbax saa'id ah soo raaco ama saxarada ama aad dareento, ka soco, waa xaalad emergency ah waana khatar gelin karto noloshaada. waa inaad hore uga aadaa dhakhtar. haddii uu dhiig badani kaa baxo, si degdeg ugu xiriir ama ku booqo emergency hospital, sababtoo ah waxaa baxayo waa dhiigaagii. haddii dhiigu kaa yaraadana halis ayaad geli doontaa. halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. fadlan sheergarey si walaalahaada aan la socon ee ugu faa'iidaystaan xanuunka daawadiisa. mahadsanidin. wabillaahi towfiiq. is aragti dambe oo xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.